وسلامتهين دمان حبناها جديدة مدح بنان كلا دوان دورشوين كلا وضع كن إلى واتنك كوي إلى واتنك وما أنت هل كان سويمد سيد الله سعطان وحل يدين إجمالي هول قرن أو مهم أو أهدلك يدتك صوماليات وحل يدين كسر دحول حشي بالشدة الصوماليات يضع idinku aaminay maamulka iyo maareynta doorashooyinka dalka ee 2022 walaalayaal waxa la idinkaga fadhiyaa in aad si madax bannaan hufan ku salaysan cadaalad daahfurnaan aad u wajahdaan mas'uuliyidiina si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah taas oo aad loogu ilaalinayo inay soo galaan kooxaha nabadiidka ama argagixisada gudiyada madax bannaan ee doorashooyinku waxay lafdhabar u yihiin gaaritaanka doorasho qanciso dhammaan ummadda Soomaaliyeed kana hufan musuqmaasuq isdabamar iyo cadaalad darro waxaad waajib gaar ah iska saartaan ilaalinta qoondada haweenka oo la rabo inaysan ka yaraan 30% sida ku xusan heshiiskii doorashooyinka shaqada gudiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka waxay ku salaysan tahay heshiiskiyadii iyo habraacidii ay gaareen golaha wada tashiga qaran sidoo kale waajibaadka iyo habmaamuuska gudiyadu waxay ku qeexan tahay habraaca doorashooyinka oo ay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaranka haddaba waxa la idinkaga fadhiyaa in aad ka howlgashaan diyaarinta qorshe howleedkiina xeerarka iyo habraacyada kale ee muhiimka u ah gudashada waajibaadkiina haddii aan dib u milicsado marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray heshiisyadii doorashooyinka howlahaas waxay ka bilaabmeen shirarkii Samareeb 1 2 iyo 3 oo ay golaha wada tashiga qaranku yeesheen laguna soo gunaaday magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020 waxa xigay in ay si wadajir ah ay ku ansixiyeen heshiisyadaasi labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 26 Sebtembar 2020 heshiiska doorashooyinka waxa lagu qeexay qaab doorashooyinka ergooyinka deegaan doorashada qoondada dumarka in ay doorashadu ku dhacaan waqtigoodii sidoo kale golaha wada tashiga qaranku waxay 1 Oktoobar 2020 soo saareen heshiiska hanaan doorashooyinka kaasoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka deegaan doorashooyinka asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hanaan u gaar ah doorashooyinka Somaliland waxa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin markii loo barbar dhigo doorashooyinkii 2016 taasoo gobol xaar u ah in 2025 dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah haddii Ilaahay raali ka noqdo inkastoo heshiiska madaxda qaranku uu ku salaysan yahay doorasho dadban haddana howlo badan ayaa laga qabtay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo nasiib darro aan suurtagelin waqtigan diyaarinta doorasho qof iyo cod ahi waa hawl baaxad weyn sida la socotaan oo loo baahan yahay in ay si wadajir ah loogu howlgalo taasoo qayb ka ah heshiiska hanaanka doorashooyinka haddaba si loo hubiyo in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025 waa inay xukuumadda baarlamaanka gudiga madax bannaan ee doorashooyinka xisbiyada siyaasadda bulshada rayidka si buuxda uga wada shaqeeyaan meel marinta geedi socodka doorashooyinka 2025 ugu dambeyn waxaan idinkula dardaarmayaa in aad u gudataan waajibaadka culus ee idin saaran si xilkasnimo iyo madax bannaani ku salaysan kana fog wax allaale wixii keeni kara tuhun iyo aaminad darro xukuumaddu waxay mar walba diyaar idin la tahay wax kasta oo idin fududeyn kara howlihiina waxaan Ilaahay idinkaga rajeynayaa inuu idin la garab galo waajibaadkiina wabillahi tawfiiq